madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday jiida hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee deegaanka Og oo ciidamadani ay ku sugnaayeen kana difaacayaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waxa salaataada u diyaara gudoomiyaha ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya taliska aaga bari ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow madaxweynaha waxa ku wehelinaya socdaalkan dhiirigelinta ciidamada qaranka ee uu jiidan ku soo booqday hoggaanka sare xisbiga talada haya ee kulmiye xubno kamid ah golaha wasiirada mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda taliyaasha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo gaas nuux Ismaaciil Taani ayaa ka warramay sooyaalka sugidda xuduudaha qaranka iyo kaalinta ciidamada qalabka sida ay ku leeyihiin mudane madaxweyne halkan waxa ku sugan ciidamadii taliskan aaga bari taliskii iyo xubno ka tirsan guutooyinka jiida hore oo aan nidhi warka ha gaadhsiiyaan maadaama ciidankaasi ay ku jiraan heegan ku jiraan mudane madaxweyne halkan waxaan degnay 1997kii yaan guutadii ugu horeysay oo ka tirsanayd qaybta 31aad ka soo raray Daraweyne aniguna taliyaha qaybta markaa ahaa halkan aan soo dajiyay waqtigeega haddii ilaahay yiraahdo in aan guusha soo ceshan doono oo halkii geen doono ayaan ilaahay ka rajeynayaa ilaahay hadduu yiraahdo mudane madaxweyne ciidanka halkan jooga diyaar bay u yihiin hawlgal kasta oo la galo diyaar bay u yihiin mudane madaxweyne waxaan ku jirnaa hadda tabaabashihii iyo tababarkii ciidanku hawlgallada ku geli lahaa waan ku jirnaa waan ogtahay ciidamo badan oo inoo maqan oo iyaguna tababarada qaadanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo la hadlaya ciidamada qalabka sida ee jiidan ku sugan ayaa u mahad celiyay guud ahaanba ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee gutay waajibaadkooda ah sugidda iyo difaaca qarankan aad iyo aad baan u salaamayaa ciidanka qaranka meelu joogaba iyo jiida hore aaga bari xaruntiisa oo aanu maanta joognana aad iyo aad baan idin salaamaya waa marka koobaade waxaynu isla qirsannahay adduunkuna uu qirsan yahay noloshuna ay si cad u tilmaamaysaa bini'aadmiga meelu joogaba haddii aanu qaranku haddii aanu lahayn ciidan adag oo cadowga daafaca inuu qarankaasi yahay hilib bisil oy bisaduhun cuni karaan iskaba dhaaf wax kale dadka ilaahay qaar meel buu u diraa oo uu dhib yareeyaa ma adduunka oo dhan waxaa la ogyahay horumarka oo caalamku sameeyo marka hore waxaa lagu sameeyaa meel nabada oo dayr adiga ku xidhan yahay ciidanka Soomaaliland waxa marag madoona oo intii aynu jiray aan qiraya shacabkuna idin qiraya oo xaqiiqo ah iyaga oo aad dawlad aan la ixtiraafsanaan oo dagaal dheer halgan dheer oo isna ka soo baxay oo aan ku xisaabtamin aynu horta marka hore bal wax dhisano oo aan meel istaagno in cadowgii aanu maalin qura inaga nasanin hadba waji u yeeshaba waxa markhaati madoona ciidanka Soomaaliland inuu yahay bir adag oo 40 sano u dambeysay dalkooda iyo dadkooda daafacayay kuwii hore ee ku shahiiday kuwa naafada ee ka gaboobay kuwa imika tababaranaya kuwa soo socda ee u halgamaya iyo kuwiina maanta xilka culus qaranka u hayaba dhammaantood waxa la qirayaa inay yihiin haliyeeye noloshooda u hibeeyay inta kale inay nabad gasho oo hore u marto oo dadka in yar yeeri karto mujaahidiinta waxa faraysaan inta aynu gaarayno Soomaaliland oo qaran adduunku aqoonsan yahay oo caalamku ku tixgeliya dawlad xor ah oo aanay ka daba qaybinayn qolada xamar joogta iska reebay iyo waxa ay la soo bahoobeenba
kama daalayno nin dadnimo leh nin qaran doonaya nin uwadka Soomaaliland u danaynaya in kuwa agoonta aabaashood ku dhinteen idinka horreeyeen nin daryeelaya kama daalayno inta fikiraysa waa inta danta qaranka meelu ka difaacaya ama cilmiga ku daafaco ama xoog ku daafaco ama arrin ku daaface hadda intiiba koobsateen oo dadkii fidiye maamulka ahaydeen dadka heshiisiye ahaydeen kuwii naftooda horay ahaydeen maantana intaynaan halkaa yoolkeena gaarin wixii caqli leh wixii wadanimo leh wixii garasho ilaahay inuu ku abuuray wuxuu heegan u ahaanayaa difaaca qaranka ilaa New York ka gaarno marka geedigii halganku wuu socdaa mana istaagaya ilaa inuu guusheena gaarno mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dul istaagay sida qarankan nafta loogu horay isla markaana ay waajib u tahay in la difaaco mar kasta aad iyo aad buu ciidanku ku dhaadanayaa waxaad ka dareentaan maanta 10 sano ka hor dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxda iyo kuwa suuqa jooga kumay xaragoon jirin oo kumay faari jirin in askari noqdaan maanta inanka iska dhaabay gabdhaha jaamacadda ka baxaya waxay diyaar u yihiin inay qori qaataan oo ciidankooda daafacaan waana tababar iyo aqoon iyo daljacaylnimo dadkiina gaarsiiseen waxa hubaala oo halkan ay fadhiyaan haddaan aabayaasheeda weydiiyo inaa u badan tihiin kuwii aabayaashood naftooda dalka u hureen ee awayaashood u hureen haddaan boqolkiiba idin weydiiyo waxaa laga yaabaa boqolkiiba 50 inay kuwaa yihiin waa sababtaan u leeyahay ilaahay dadka qaar buu u diraa in naftooda huraan dalkooda kuwa kale ku noolaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay inay waajib tahay in shacabka Soomaaliland ay dhexda u xidhaan difaacidda iyo ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland inta kale maxaa ku waajibay Soomaaliland waxa ku waajibay Soomaaliland kalena inay caqligooda iyo maankooda geliyaan kuwa nolosha raaxada la jecel kuwa qoyskooda qura ka fakira kuwa lafahooda qura la carara in aanay noloshaasi soconayn ee ay ka soo qayb qaataan qalbi iyo quwad iyo cudud iyo codba kuwa naftooda u horeeyay isla garab taagaan dagaalku markuu socdo dagaalku waa dagaal ilaa guusha la gaaro ma dhamaado goob walbana goob maalin waxay ku gaaraan iyo goob yar oo maalin wax ka dhacaan ma aha wax la yiraahdo waxba dhacay qaad kale ka dhici doona kuwa kale nu gali doona ilaa aynu gaarno Soomaaliland oo dhan qarannimadeedii 6 kiiloomitir la helana taasaynu wadayna waxaan idinku hambalyeeynaa adkaysiga waxaan idinku hambalyeeynaa naftiina awrsan qarankooda madaxweyne Biixi waxa kale uu tilmaamay waxyaalaha maanta cadawga huwantay soo raacinaya waxaan uga jawaabayaa nin baa gabiyo wuxuu yiri mar haddaan cududayda ku ciilbax karaayo mar haddaan cagahayga ku caraabi karaayo mar haddaan carabkayga colaadda ku dhaafo waxba yahay calacalin Soomaaliland taasay leedahay maanta Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Og jiida hore ee gobolada bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland